hadda aniga gabadheeda yar hal sano jirtaa February 6 bay hal sano gashay marka gabadheeda yar ilma ka horreeyay ilmihii baa marka iga dilmay qofaan marka aqoon ii lahayn baa intuu Instagram-kayga qoraal page dheer buu soo qoray marka ayagana maysan ogaan lahayn gabadhayda aabaheed ayaa yani xaalad sidii u jirtay falanqeeyay ma fahanti sidii bay ku ogaadeen marka dadkii oo dhan aniga maxay sameeyeen loo qeyb ii soo galeen marka qofkan page dheer oo qoraal ii soo qoray marka waxaas dhahay anoo iska fiirfiirina maalmihii xoogaa xanuunka ka soo qabsaday waxaas dhahay dadka maadaama ku wada ducaynayeen ay haddana dhibaatadii kugula jirta ay kula qaybsanayeen adigana falcelin u sameeyo u jawaab marka waxaas dhahay qofka page-ka dheer soo qoray maxaa page-kii dheeraa marka akhri page-kii dheeraa wuxuu socdo intii hore dhan cayay xasuuska indan wuxuu ku gabagaboobayba Mareykanad joogtaa ilmahana adaa kas iskaga dilay maxaa iskaga dhigay naag ayada ilmihii ilaahay ka qaatay naagaha Mareykan waa la ogyihiin wax saacadi camal fahmaysa oo just aniga marka isla markii qoraal baa igu soo dhacay inaan qoro haddana waxaan dhahay horta yaa wax dilay waa ilaahay yaana wax nooleysiye waa ilaahay ani ilmahan kayga duuhan lahaa waan haysan lahaa laakiin kayga waa muu baahayn ilma aniga liiga jeceliyay buu ahaa soo calafkaygana muusan ahayn sidii qofkii uma jawaabin bartii baan aan iskaga dhaafay 2 week miya haddaanan been sheegin 3 week marka soo wareegtay gabadhii waxay ii soo qortay iga raali ahoo maanta xanuun baa hayo isbitaalka ayaan jiifaa ها isbitaalka ayaan jiifaa iga raali noqo